waxay ahayd dharbaaxo kulul oo Mareykanka ku dhacday natiijaduna waa in 3 askari looga dilay tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza. Waa markii ugu horeysay oo ciidamo Amerikaan ah lagu dilo weerar dhanka cirka ah. diyaarad daroon ah oo la ogeyn halka laga soo riday iyo cidda iska leh ayaa bartilmaameedsatay saldhigga ciidamada Mareykanka ee ku yaala xadka kala qaybiya dalalka Jordan, Suuriya iyo Ciraaq ee loo yaqaano Tower 22. saldhiggan ayaa ku yaala xuduudka saddexagalka istiraatiijiga ah ee ugu halista badan mandiqada Bariga Dhexe. difaacyada hawada ee Pentagon-ka ayaana ku fashilmay inay difaacaan ciidamadooda. Haddaba maxaa dhacay? Sidee ayuu soo dhacay weerarka? Maxaanse ka naqaanaa saldhigga ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin halkaas ee la weeraray? waasatee dowladda uu Biden ku eedeeyey in ay ka dambeysay weerarkaas, uguna hanjabay inay tallaabo military ka qaadi doonaan sidoo kale ka bixitaanka Mareykanka ee Suuriya iyo Ciraaq. run miya mise waa been? dhammaan jawaabahaas iyo xogo kale muhiim ah ayaan idinkugu soo gudbin doonaa warbixintan ee nala socda ilaa dhammaadka. mahadsanidin. tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza, waa markii ugu horeysay ee ciidamo Amerikaan ah Bariga Dhexe lagu dilo. weerarkan waxaa fulisay diyaarad weyn oo nooca aan duuliyaha lahayn ah, taasoo sidii gantaalka oo kale loogu duqeeyey saldhigga ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin xuduudka saddexagalka istiraatiijiga ah loona yaqaan Tower 22. si gaar ah wuxuu ku yaalaa xuduudka kala qaybiya Jordan iyo Suuriya iyo Ciraaq, waxaana ku dhintay ilaa 3 askari oo hurdayay teendho ku taala saldhigga xilliga uu weerarku dhacayay. waxaana ku dhaawacmay sidoo kale ilaa 34 askari, kuwaasoo hadda loo sameynayo daweyn dhab ah maadaama dhaawacyada soo gaaray ay yihiin kuwa halis ah. haddaba sidee ayuu weerarku u dhacay? sidii aan hore idinkugu soo sheegnayba, waxaa fulisay diyaarad daroon ah oo nooca ismiidaaminta ah, taasoo sida la xaqiijiyey laga soo riday meel ka mid ah dalka Ciraaq, waxaana lagu bartilmaameedsaday saldhigga loo yaqaano Tower 22 ee ciidamada Mareykanka. weerarku wuxuu dhacay habeenkii ay soo galaysay Sabtida ee aynu soo dhaafnay, waxaana la shaaciyey maalinkii Axadda ee xigtay. saldhigga Tower 22 waa saldhig aad u yar, waxaana ku sugan ciidamo Amerikaan ah oo aad u kooban, wuxuuna ku yaalaa dhinaca waqooyi bari ee xuduudka Jordan. ciidamada Amerikaanka ee ku sugan saldhiggan ayaana u badan injineero. sidoo kale waxaa ku sugan qaar ka mid ah diyaaradaha droniska ee waxbasaasa iyo kuwa weerarka. saldhiggan ayaa sidoo kale wuxuu aad ugu dhow yahay saldhigga kale ee ciidamada Mareykanka ee loo yaqaano Tanaf kuna yaal koonfur bari ee Suuriya. barta uu ku yaala saldhiggan ayaana saacadihii lasoo dhaafay waxaa ka soo baxayay warar dhowr ah oo iskhilaafsan. Washington waxay sheegtay in weerarku uu ka dhacay gudaha dalka Jordan, halka Jordan ay iska fogeysay in weerarku uu ka dhacay gudaha dalkeeda. ilo ka tirsan maamulka Jordan ayaana sheegay in weerarku uu ka dhacay gudaha dalka Suuriya, balse uu si aad ah ugu dhow yahay xadka dalkooda. bartan ayaana ah saddexagalka kala qaybiya sidaan hore usoo sheegnay dalalka Jordan, Suuriya iyo Ciraaq. dhinaca kale, war-saxaafadeed ka soo baxay Jordan ayaa lagu sheegay in weerarkan lagu bartilmaameedsaday saldhigga ciidamada Mareykanka ay ka dambeeyaan waxa ay ugu yeertay kooxaha argagixisada ee ka dagaalama dalka Ciraaq. dhinaca Baghdadna ilaa iyo hadda wax war ah kama soo bixin. xitaa Biden iyo maamulkiisa waxay sheegeen in ay hadda ku mashquulsan yihiin ururinta xogta la xiriirta cidda ku soo qaaday weerarka, balse xaqiiqada aan u baahnayn in la baaro ayaa ah in kooxaha ay Iiraan taageerto ee ka dagaalama mandiqada, gaar ahaan kuwa Ciraaq iyo Suuriya, ay ka dambeeyaan weerarkan. madaxweyne Joe Biden ayaa ballan qaaday in uu jawaab adag ka bixin doono weerarkii khasaaraha badan dhaliyey ee Axaddii lagu qaaday saldhigga ciidamada Mareykanka ee dalka Urdun. laakiin caqabadaha Mareykanka ayaa ah in la helo dheelitir sax ah oo u dhexeeya ka hortagga iyo sii kicinta dagaalka. haddaba waa maxay wadooyinka u furan Mareykanka ee uu qaadi karo? Mareykanku waxa uu haystaa ama u furan dhowr wado oo uu kala xusho, kuwaas oo ay soo diyaarisay wasaaradda difaaca ee Mareykanka oo ah xog sirdoon oo laga helay CIA-da iyo hay-adaha ammaanka ee qaranka Mareykanka. kadibna waxaa la horgeyn doonaa golaha amniga qaranka Mareykanka iyo siyaasad dejiyaasha, iyadoo madaxweynuhu uu go-aanka ugu dambeeyo gaarayo, wuxuuna saxiixi doonaa wadada la doortay iyo nooca ay noqonayso falcelinta Mareykanka. wadada koowaad waa in la duqeeyo saldhigyada iyo taliyayaasha xulafada Iiraan. tani waa wadada ugu macquulsan, waana mid horay Mareykanku u isticmaalay. sidoo kale waxaa jira tiro badan oo ka kooban saldhigyo, baqaaro, hub iyo xarumo tababar oo ku yaal Ciraaq iyo Suuriya, kuwaas oo ay leeyihiin maleeshiyaadka tirada badan ee ay Iiraan taageerto. maleeshiyaadkan waxaa tababara, qalabeeya oo maalgeliya ciidamada Qudus ee ilaalada kacaanka Iiraan.
maraykanku wuxuu yaqaan cidda ay yihiin iyo meesha ay joogaan, wuxuuna awood u leeyahay in uu si fudud u duqeeyo saldhigyadan. laakiin tani ilaa iyo hadda kuma aysan guuleysan inay ka hortagto maleeshiyada, kuwaas oo in ka badan 170 weerar ku qaaday saldhigyada maraykanku ku leeyahay gobolka tan iyo 7 Oktoobar. tallaabada labaad ee maraykanka u furan waa duulaan ka dhan ah Iiraan, balse tan waxay noqon doontaa mid adag, mana ahan waxa uu maraykanku si fudud u tixgelin doono. aad bay u adag tahay, inkasta oo aan meesha laga saari karin in argosiga maraykanku ay ku jirto in la bartilmaameedsado dhulka Iiraan. sida ay sheegeen Washington iyo Tehran, midkoodna ma doonayo in uu galo dagaal baaxad leh oo u dhexeeya labadii dhinac. jawaabta Iiraan waxaa ka mid noqon kara inay isku daydo in ay xirto marinbiyoodka Hormuz ee dhaqaale ahaan muhiimka ah, kaas oo 20% saliidda iyo gaaska dunidu ay maraan. tani waxay saameyn adag ku yeelan doontaa dhaqaalaha adduunka. kor u kaca qiimaha iyo dhab ahaantii waxay dhaawacaysaa fursadaha madaxweyne Biden ee dib u doorashadiisa bisha November ee soo socota. sidoo kale tallaabada saddexaad ee u furan Washington waa in aysan wax jawaab military bixin. waxaa jira qaar ka tirsan hay-adaha maraykanka oo ku doodaya, marka la eego xiisadda hadda ka taagan bariga dhexe, inay mas-uuliyad darro tahay in Washington hadda ay weerarto danaha Iiraan, gaar ahaan iyadoo lagu jiro sanad doorasho. weerarada maleeshiyaadka ay Iiraan taageerto waxay ka horeeyeen dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee Gaza, laakiin aad ayay u kordheen tan iyo 7 Oktoobar. dhinac kale, haddii uu soo idlaado dagaalka Gaza, waxaa laga yaabaa in xiisadda gobolka ay hoos u dhacdo, inkastoo Israa'iil ay ka digayso in weli bilo ka harsan tahay soo afjiridda dagaalka Gaza.